السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. boqortooyadii Shaba burburkeedii wixii ka dambeeyay waxaa samaysmay 7 boqortooyo oo muslim ah oo ku tirsanaa dhulka xeebaha ah ee Geeska Afrika iyo gudaha hore ee dhulka maanta ku fadhido Ethiopia. boqortooyinkaas waxay kala ahaayeen Ifat, Dawaro, Arabini, Hadiya, Sharqa, Bali iyo Dara. maanta midda aan muhiimada saarino waa Ifat. boqortooyada Ifat waxay ahayd boqortooyada ugu awoodda badnayd uguna dhul weyneed boqortooyinka Islaamka ah ee toddobada. intii ka horeysay dowladdii Cadal ee uu hogaaminayay Imaam Axmed Guray, boqortooyadani waxay ku taalay galbeedka Saylac waxayna ku dharanayd xeebta ku beegan Yemen. boqortooyadan ayaa waxay ku noolayd barwaaqo iyo nolol maciishadeedu aad u jaban tahay maadaama ay dhinaca dekedii ganacsiga ee Saylac ahayd ka haysatay, dhinaca kalena ay ila dhulka beeraha ku fiican ee Shaba ay ka talinaysay. boqortooyadani waxa adag in la xadido xilligii ay aasasantay, waxaase la yaqaanaa ciddii aasastay oo ah Carab Quraysh ah oo ay taariikhyahanada qaar sheegaan in ay Quraysh ka sii ahaayeen reer Bani Cabdidaar. qaar kalena ay leeyihiin waxay Quraysh ka ahaayeen reer Bani Hashim oo ka sii ah faracii Aqal bin Abi Talib. sidaan kor ku soo sheegnay, Ifat waxay qabsatay dhulkii boqortooyada Shaba ka talin jirtay xilligii uu Ifat haystay Umar Walasmac oo ahaa ninkii ugu caansanaa madaxdii soo martay Ifat. boqortooyadan aad ayuu dhulkeedu u balaadhnaa oo marka laga yimaado Shaba waxaa hoos yimid markii dambe dhulka Danakil ama maanta loo yaqaan dhulka Canfarta, Cadal, Mooro, Jidaya, Hubaat ilaa Badda Cas iyo dhulka Saylac. caasimadda boqortooyada Ifat waxaa iyana la odhan jiray Ifat, waxayna ku taalay meel 80 kiiloomitir galbeedka kaga beegan magaalada Saylac. Ifat waxay maamuli jirtay laga soo bilaabo koonfurta dalka Eritrea, dhulka Canfarta, Djibouti, Harar, bariga webiga Awaash, dhulka maanta uu ku yaalo deegaanka Soomaalida ilaa waqooyiga Soomaaliya oo ay ku jirtay Berbera iyo Saylac. arrinta yaabka lahayd ayaa ahayd in Umar Walasmac ay isbahaysteen boqorkii Xabashida ee Yakuno Amlak oo ahaa boqorkii dowladdii Xabashida ee la odhan jiray Solomonic Dynasty oo aasasantay 1270kii, dagaalna kula jirtay Segwe Dynasty oo ay hogaaminayeen niman eego la yiraahdo. Umar Walasmac iyo Yakuno Amlak ayaa waxay ku heshiiyeen inay isu kaashadaan la dagaalanka mid walba ka kale mucaaradkiisa. Yakuno Amlak wuxuu Umar Walasmac ka kaashaday ka takhalusida eeguga iyo boqortooyada Segwe Dynasty, halka Umar Walasmac boqorka Xabashida uu kaashaday la dagaalanka imaaradihii muslimiinta ahaa ee boqortooyada Ifat ka soo horjeeday. cawaaqib xumada ka dhalatay heshiiskan dhexmaray Umar Walasmac iyo Yakuno Amlak waa mid dabashab ku noqday mustaqbalkii dowladihii muslimiinta. arrintani waxay abuurtay in ay Xabashidu markii koobaad soo dhex gasho muslimiinta, markii dambena ay iyaga isu garaacdo oo ay qaarna la heshiiso qaarna la dagaalanto, iyadoo ku ay heshiiska la tahay ku caawinaysa xoolo, hub iyo ciidanba. markii dambena ay Xabashidu ku hamiday in ay dhulkii dowladaha muslimiinta oo dhan xukunkeeda hoos keento, kuna fiiso diinta Kiristaanka, iyadoo bilowday la dagaalanka diinta Islaamka, gubitaanka masaajidda, burburinta boqortooyinka muslimiinta ah iyo laynta culimada ka soo horjeesata. waxaa xusid mudan in ay wiilashii Umar Walasmac ee isaga xukunka ka dhaxlay ay ka baxeen heshiiskii aabahood la galay boqortooyada Xabashida, bilaabeenna halgan ay kula dagaalamayaan Xabashida. hase yeeshee arrintani waxay bilaabatay goor ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen.
oo xabashadii dhexda u gashay muslimiintii oo daciiftay, xabashaduna aad u xoogeysatay. Khaladaadka noocan ah ee Cumar Walasmac galay 100 sano ka hor waa kuwo ay ilaa maanta galaan dadku u waashay kursiga ee xiljacaylku madax maray. Waxa ilaa maanta arkaysaa nin madax ah oo cadowga muslimiinta iyo diinta islaamkaba ku soo hogaaminaya ummadda iyo dhulka muslimiinta ah si uu u gaadho kursi yar oo muddo kooban ku fadhinayo. Marka la barbar dhigo dhibaatada uu aayaha ubadkiisa iyo ummadda u soo jiidayo, siyaasiyiinta noocan ah ee aragtida gaabani waxayna dareensaneen in cadaawad kasta oo kala dhaxaysa walaalkiisa muslimka ah ayna keenayn in dadka diintiisii la bedelo, dhulkoodiina shisheeye u gacan galo. Boqortooyadan Ifaad bilowgii hore dhererkeedu wuxuu ahaa 15 maalin socod, balaceeduna wuxuu ahaa 20 maalin socod oo si fiican ugu camiran tuulooyin. Ciidanka Ifaad wuxuu gaarayay 15,000 oo fardooley ah iyo in ka badan 20,000 oo ciidanka lugta ah. Hase yeeshee Ifaad markii dambe waxa ay la wareegtay imaaradihii yaryaraa ee kale, waxaana hubaal ah in dhulkeedu intaas ka sii batay, ciidankeeduna sidoo kaleeto cabirka mid ka badan uu noqday. Haddaba muddadii heshiiskaasi uu socday ee ka dhaxay Cumar Walasmac iyo ninka xabashiga ahi, xabashidu waxay dhibaato badan u geysatay dadkii muslimiinta ahaa. Haddaba aan dhowr qodob ka eegno dhibaatooyinkaas. Haddaba dhibaatooyinka Solomonic Dynasty ay u geysatay dowladihii muslimiinta ahaa, haddaan dhowr qodob ka soo qaadano dhibaatooyinkaas. Sanadku markuu ahaa 1314 ayuu boqorkii Solomonic Dynasty ee Amda Sion la odhan jiray wuxuu amar ku bixiyay in muslimiinta la tirtiro oo la kiristaameeyo, ciddii arrinka diidana laga qaxiyo waddanka. Sidoo kale sanadkii 1415 ayuu boqor Yashaaq wuxuu amray in muslimiinta iyo dadka kale ee bilaadiinta ahba waddanka laga qaxiyo. Haddaba maadaama ay boqortooyinkii muslimiinta ay ku fadhiyeen dhul aad uga baaxad weyn dhulkii boqortooyada Solomonic Dynasty, waxa boqortooyadii ku adkaatay in ay dhulka intaa la eg si buuxda gacanta ugu dhigaan. Sidaa daraaddeed markii dambe boqortooyadii xabashida waxay ku qasabtay imaaradihii muslimiinta ahaa in ay sanad walba xoolo baad ah u keenaan boqorka xabashida si ay naftooda u badbaadiyaan. Nooca baadda ugu xumayd, tusaalaha cadna u ahayd heerka uu gaadhay dulaysiga muslimiintu, waxay ahayd in boqortooyadii hadiya lagu qasbay in ay sanad walba boqorka xabashida hadiyad ahaan ugu geeyaan gabadh yar oo gashaanti ah oo ay qurux iyo nasab ku soo xusheen si uu boqorka intuu kiristaameeyo kadibna u qaato, si aan loo laynin masaajidadooda looga gubin awgeed. Imaaradda hadiya waxay samayn jireen intay gabadha kafan ku xidhaan ayay salaada janaasada ku tukan jireen iyagoo u tirinaya inay dhimatay. Sidaas ayayna ugu diri jireen boqorkii xabashida. Waxaa kaloo boqortooyadii hadiya laga mamnuucay inay seefo iyo hub yeeshaan iyo inay fuulaan fardo kooraysan. Haddaba daawadayaal, muuqaalkeena intan ayuu ku kooban yahay. Inta muuqaalka xig ku kulmi doono waxaan igaga tegaynaa. Wassalaamu calaykum.